sarkaal sare oo ka tirsan laamaha ammaanka ee Sacuudiga isla markaana sanooyin badan ahaa nin u dhaxeeya sirdoonka Britain ee dalalka kale ee reer galbeedka ayaa haatan dacwad lagu soo oogaya isaga iyo qoyskiisa sida ay sheegeen sirdoonka reer galbeedka. Dr. Saad Al-Jabri oo gacan ka geystay fashilinta weerar ay Al-Qaacida u maleegayeen reer galbeedka ayaa muddo 3 sano ah musaafiris ahaan dibadda ugu noolaa. waxa uu ka cararay howlgaladii uu dhaxal suge Mohammed bin Salman ku bartilmaameedsanayay dad maalqabeeno ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan qoyska boqortooyada. wararka ayaa sheegaya in haatan la xiray caruurtiisa oo afduub loo haysto sida uu sheegay wiilka ugu weyn qoyska Dr. Saad oo lagu magacaabo Khalid Umar iyo Saraax. waxaa la afduubtay subaxnimadii 16 bishii saddexaad waxaana guriga kala baxay 50 askari oo watay 20 gaari ayuu yiri Khalid Al-Jabri. waxaa baaritaan lagu sameeyay guriga qoyskan oo ku yaala Riyadh isla markaana waxay sidoo kale la baxeen kaamirooyinka ammaanka ee CCTV loo yaqaano. ma jirto dacwado ama sabab la sheegay in loo xiray xubnaha qoyskan. Khalid oo isaga iyo aabihii ay musaafiris ahaan ugu nool yihiin Canada ayaa waxa uu yiri xitaa ma ogin in ay nool yihiin ama ay dhinteen. waxa uu rumaysan yahay in goob gaar ah lagu hayo lagulana gorgortamayo isku day ah in lagu qasbo in aabihii uu Sacuudiga dib ugu soo laabto halkaasi oo uu wajihi karo xarig. xukuumadda Sacuudiga kama aysan soo jawaabin codsi ay u gudbisay warbaahinta oo ah in ay jawaab ka bixiyaan eedeynta ay soo jeediyeen qoyska Dr. Saad Al-Jabri. sanooyin badan waxa uu aad ugu dhawaa dhaxal suge Mohammed bin Naif oo isagu si aad loogu amaanay inuu ka adkaaday ururka Al-Qaacida sanadii 2000. waxa uu udub dhaxaad u ahaa xiriirka Sacuudiga ay la lahaayeen sirdoonka dalalka Mareykanka, UK, Canada, Australia iyo New Zealand. sanadii 2010 ayaa xiriirkan muhiimka ah waxa uu gacan ka geystay badbaadinta nolosha dad badan sida uu sheegay sarkaal horey uga tirsanaa sirdoonka reer galbeedka.